السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما آتاه، أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ما شاء الله إلهي baan ku xamdinaynaa mar walba. nicam fara badan buu ilaahay dusheena uu dhigay. nicamta ilaahayna siiyey nicmada ugu weyni waa alhidaaya, waa hanuunka weeyaan. in ilaahay ku hanuuniyo oo dariiqa xaqa ilaahay uu ku mariyo oo qof muslima oo quman oo toosan ilaahay uu kaa dhigo. nicamta adduunka dusheeda inta la joogo ilaahay uu bixiyo waa nicmada ugu weyn weeyaan. inay nicmadaasi nicamta ugu weyn tahayna waxaa caddaynaysaa salaada markaan tukanayno, keena faqiirka, keena qaniga, keena lab iyo keena dhidig, keena madaxa iyo keena mijaha. su-aasha keliya ee salaada dhexdeeda qofka loo ogol yahay ilaahay inuu ku weydiisto waa su-aal weliba ku soo aroortay suuradda faatixada dhexdeeda. suuradda faatixaduna waxa weeyaan waa ruknu min arkaani الsalaa, oo nebigu calayhi salaatu wasalaam waa kii lahaa: laa salaata liman lam yaqra' biummi اlqur'aan. suuraddaas suuratu lfaatixa qofka aanan akhrisan buu nebigu yihi salaad ma leh, oo salaad uma ahaanin. salaadaas markaa suuraddaasi iyada magaceega dhan baaba salaaya. su-aasha keliya ee ku soo aroortay waxa weeyaan markaan suuradda aan akhrisanayno waa ihdina asiraata almustaqiim. ilaahu dariiqa mustaqiimkaaga ilaahu nagu toosiyo na mari. taasaa markaa caddaynaysa in shayga ugu qiimo badan ee ilaahay bini aadanka adduunka dusheeda uu ku siiyey inay tahay alhidaaya. hidaayadduna wax kale maahin, waxa weeyaan waa hanuun oo ilaahay casa wajalla ayaa mulkiyo oo ilaahay baa haya hanuunkaas. qofka ilaahay khayr uu la rabaa ilaahay nuurkaana qalbigiisa uu yeelaa. hanuunkaa ilaahay baa bixiya. xataa malaa'igtu ma bixin karto, nebiyaduna ma bixin karaan. oo nebi haddii uu milkiyey hidaayaduu nebi bixinayo, nebi nuux calayhi salaam inankiisa iyo xaaskiisa ayuu siin lahaa. nebi ibraahimna aabbihii buu siin lahaa. nebi maxamed calayhi salaatu wasalaamna adeerkii abaa aalib buu siin lahaa. laakiin hidaayaddaasi waa hidaayatu tawfiiq. ilaahay baa hayo, ilaahay baa mulkiya. oo nebigeennu calayhi salaatu wasalaam adeerkii abaa aalib oo nebigeenna soo gacan hayay oo soo koriyey, oo korsiinta nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam qeyb weyn ku lahaa, markuu bukooday ee xanuunku uu riday ayuu nebigu ziyaarto uu u galay. waxa uga sii horreeyey oo la joogay markaa abujahal calayhi lacna. deedna markaa buu nebigu dhinac buu ka fadhiisto oo wuxuu ku yidhi: yaa cammi, qul laa ilaaha ila allah uxaaju laka biha cinda allahi yowma alqiyaama. adeer waxaad ii tidhaahdaa hal mar keliya aniga imaqashii, oo waxaad tidhaahdaa laa ilaaha ila allah dheh. maalinka qiyaamahan aniguna maaragtaane kuu dacwin doonaaye, oo ilaahay casa wajalla hortiisa ayaan ka marag furi doonaa inaad adduunka dusheeda kelmadda aad ku soo tidhi. lianna nebigeenna calayhi salaatu wasalaam xadiis kale waa kii nebigu lahaa: malag baa ii yimid oo igu yidhi laba mid kala dooro ayaa ilaahay ku leeyahay, inay ummaddaadu kala badh ay jannada gasho iyo in shafaacadda lagu siiyo. deedna nebigu waa kii lahaa: shafaacadda ayaan qaatay, oo shafaacaddeedu waxay gaadhi doontaa qof allihii qofkii adduunka dusheeda ku soo ashahaatee laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulullah sala allahu calayhi wasalam ee islaamnimada soo galay. waxaan u helayaa buu nebigu leeyahay qiil aan qiyaamaha ugu dacwin karo.
taabuu markaa nebigu adeerkii abu aalib uu ku lahaa kelmadda aniga hal mar keliya imaqashii maalinka qiyaamahan kuu shafeecad qaadi doonaaye deedna nebigeena sala allahu calayh wasalam adeerkii waxaa ag fadhiyay abujahl calayhi lacna fircawna haadihi lumma ayaa markaa ku yidhi abaa aalibow ma diintii aabbayaasha aad ka dhaxashay ee milladii cabdulmuطalib intood ka leexata maad moxamed maanta warkiisa aad qaadanaysaa deedna markaasuu iska aamusay abu aalib haa iyo maya midna ma odhan deedna nebigu calayhi salaatu wasalaam haddana uu soo jeediyo wuxuu ku yidhi kalimatan uxaaju laka biha cinda allahi yowma alqiyaamah hal mar adeer aniga kelmadda i maqashii maalinka qiyaamahaan ku shafeecad qaade hadalkii u dambaysay abaa aalib uu ku hadlay wuxuu ahaa inuu yidhaahdo calaa millati cabdilmuطalib baan ku dhintay moxamedow aniga iska kaydaa deedna naftiina way ka dhacday labadaa indhood isagoo nebiga ilintu ay ka daadanaysa buu nebigu ka kacay halkaas maxaa yeelay adeerkii u jeclaa nebigu kursiintiisa iyo maaragtaana ilaalintiisa iyo raacayadiisa qayb xoogla ayuu markaa abu aalib uu ka soo qaatay khayrkuu nebigu la jeclaa oo hidaayadda iyo naxariista ayuu la jeclaa laakiin hidaayadda nebi maxamed ma hayo ilaahay baa ku yidhi innaka laa tahdii man axbabt walaakina allaha yahdi man yashaa wa huwa aclamu bilmuhtadiin kaad adigu aad jeclaata ma soo hadaynaysid baa nebiga lagu yidhi waa hidaayadda tawfiiqda waafajinta ilaahay baa iska leh ka aan doonna annaka hadaynayna baa ilaahay yidhi caza wajal kuwa hanuunayana annaka naqaana baa ilaahay nebigiisa uu ku yidhi marka hidaayaddaas ilaahay baa milkiye cid kale ma hayso oo dee nebi maxamed hadduu milkin lahaa hidaayadda bilaalow xabashiya hidaayadda ma heleene abaa aalib oo qurayshiya buu nebigu hadayn lahaa abulahab oo qurayshiyo nebiga adeerkiya buu nebigu hadayn lahaa hidaayadda haddii ay cid milkinayso een maaragtaane dee nebi ibraahim calayhi salaam aabbihii gaalnimo kuma dhinteene bal hidaayaddu ku deeqi lahaa ee uu siin lahaa marka hidaayadda ilaahay baa haya caza wajalla kuu doonana ilaahay isagaa hanuuniya kuu doonana ilaahay tabaaraka wa tacaala isagaa baadiyaya oo lumiya muuse binu cimraan waa nebi muuse calayhi salaam oo 30 sannadood aqalka fircoon ku barbaaray oo ku korayna ilaahay uu hanuuniyo waxa uu ka dhigay nebi rasuulah oo la yidhi waliba wakallama allaahu muusa takliima waa nebiga keliya adduunka dusheeda ilaahay caza wajalla hadalkiisa ku maqlay buu ahaa nebi muuse calayhi salaam nebi muuse oo aqalka fircoon ku barbaaray ka hanuuniyey ee risaaladda u doortay inuu nebi rasuula uu noqdana waa allaahu rabbulcaalamiin weeyaan waxaa kaloo hidaayadda aanan nasiib u helin ninkii la odhan jiray saamiriy muuse binu dafar baa isagana la odhan jiray buu yidhi ibnu cabbaas waa ninka reer bani israa'iil ahaayee malakuljibriil suuraddiisii malakiga intuu ku arkay haddana ilaahayna rumayni waayey rasuulkii loo soo dirayna raaci waayeyna kaana hadday ay noqonayso hidaayaddu in qof uu hadeeyo aragtida jibriil uu ku hanuuni lahaa limaada jibriil waa malak ilaahay baa tabaaraka wa tacaala qaamad iyo quwad iyo taaqad ku abuuro siiyey ninka malagaa arkayna ilaahay hidaayadda kumuu deeqine ilaahay hidaayadda waxa uu ku deeqay ninkii guriga fircoon ku barbaaray ayaa ilaahay hidaayadda ku galladaystay marka hanuunka ilaahay baa bixiya innaka ilaahay tabaaraka wa tacaala waa inoo nicmeeyey oo hanuun baa ilaahayna siiyey laba xaas oo qur-aanka lagu sheegay daraba allaahu maalan liladiina kafaruu imra'ata nuuxin waimra'ata luutin kaanataa taxta cabdayni min cibaadina saalixayn fakhaanataahumaa falam yugniya canhumaa min allahi shay'a waqiila idkhula annaara maca addaakhiliin wadaraba allaahu maalan liladiina aamanuu imra'ata fircawn id qaalat rabbi ibni lii cindaka baytan fi ljannah wanajinii min fircawna wacamalihi wanajinii min alqowmi aldaalimiin waa laba qiso oo cajiibah fii suurati taxriim bay ku taallaa awaakhirkeeda waa laba qiso cibro qaadasho leh oo la raba inaad ku cibro qaadatid ood islaamnimada iyo hidaayadda ilaahay kugu deequu ku siiyey adoo aanan weydiisan baa ilaahay qof muslima ilaahay uu kaa dhige waa inaad nicmadda ilaahay tabaaraka wa tacaala aan ugu mahadinaa oon qadarinaa waa laba xaas labaduba laba nebi bay ku hoos noolaayeen mid waa zawjatu nuux calayhi assalaam midna waa zawjatu luut calayhi assalaam labada nebi xaasaskoodiina ilaahay hidaayadda albaabadeedii waa ka xidhay gaalnimo ayay kula noolaayeen iyagoo gaalnimada qarsanaya ayay hoosta gaalnimo ku qarsanayeenoo nebiyadani way khaa'imeen
wayna khiyaanayeen naarta ku waarya baa nidhi baa ilaahay yidhi oo kuwa naarta ku waariyey ayaad ma ooga tihiina naarta la gala baa kuwa ku nidhi baa ilaahay yidhi halka la yidhi طاغية فرعون oo garanaysaan oo quraanka lagaga waramay oo 6 juz oo quraanka ilaahay ku taala ayaa nabi Muuse calayhi salaam iyo Fircoon wixii dhaxmar lagu soo celceliyay